بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan dhalinyarta wax baratay shahaadooyinka khibradda iyo shahaadooyinka jaamacadaha haysta ee joogo ku nool East Africa aan u sharxayaa program cusub oo sanad iyo badh ka hor ay dowladda Jarmalku ay hindistay oo hadda dhaqangelkiisii la bilaabay ayaan rabay inaan si degdeg idinla wadaago qaab waxaan u sharaxayaa video ahaan ah oo muuqaal ahaanteedan uma sharaxayo kaarka magaciisa waxaa la dhahaa Schengen Card Deutschland halkaa kore ayuu ku qoran yahay qoraalka aad aragtaan weeye kaarkaas waa fursad muhiim oo hadda Jarmalku ay soo kordhiyeen oo lagaga soo qaadayo shaqaalaha waxbarta ee khibradda ah ee caafimaadka makaanikada diyaaradaha korontada isgaarsiinta iyo dhismaha bartay ee ku nool wadamada ay Jarmalku safaaradda ku leeyihiin qaab website ahaan ayaan idinku sharixi doonaa shuruudaha websitekaas ka arki doontaan labada website ayaa lagala kala xiriirayo iyo kaarka magaciisa iyo shuruudihiisa ayaan idin sharaxaya hadduu alla idmo kaarkuna waa kaa naga koraya Schengen Card Deutschland ayaa la dhahaa insha allah inaad nasiib wacan heli doontaan ayaan rajeynayaa isagoo faahfaahsan oo dhammaystirana YouTube-kayga oo aan isna halkan kusoo qorayo ayaad igala socon doontaa hadduu alla idmo aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhalinyaro aan wada shaqeyno hadda kadib waxaan go'aansaday oo jaamacadaha waddanka Italiya aan ku noolahay iyo jaamacadaha waddanka Belgium oo Soomaalida ogol inaan labada waddan jaamacadahooda idin soo gudbiyo haddana waxaa soo kordhay oo cusub asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat dhalinyaro jaaniskii Jarmalka ay hadda ka hor sanad iyo dhowr bilood ka hor ay shaaciyeen ee ahaa waxa loo yaqaano Schengen Card Deutschland oo ah kaar shaqo oo lagaga soo dalban karo wadano cayiman oo u badan midowga Yurub iyo Aasiya iyo Latin America iyo xataa wadano ku yaala Afrika siiba East Africa arrintu Jarmalku markii ay wax iclaamiyaan ama ay wax sheegaan ay dhahaan waxaanu sameynaynaa waxaas sanad iyo badh 2 sano qaadataa arrintii way soo dhamaatay fursad fiican oo dhalinyarta wadanada caalamka kala joogta ee Soomaaliyeed anfacayso ayay keeneen ilaa inagu Soomaali baan nahay Soomaali baan u hadlaynaa marka arrintii baan idinka daba geenaya qaabka loo helayo waxaan aadaynaa Google-ka waxaan ku qoraynaa hadduu alla idmo meesha ugu habboon iyo kaarka magaciisa waxaa la dhahaa ila socda insha allah Schengen Card Deutschland waa ka u koreeyo Schengen Card markaan qorno waa kan u koreeyo Schengen Card ay ku qoran tahay waad ku dhufanaysaa shuruuduhu waa kuwan website-ka markaad gasho walka ugu koreysa ay ku qoran tahay Schengen Card shuruuduhu way kugu jiraan down baan dhahaynaa shuruuduhu halkanay ku jiraan marka inta badan website-ada Jarmalka markaad gasho marka ugu horeysa waxa kaa soo horbaxaysa luuqadooda iyo luuqadooda iib geenayaan mid Schengen Card in Deutschland Arbeiten ayaa ku qoran yacni kaarka shaqaalaha iyo shaqaaleysiinta ee waddanka Deutschland ayaa ku qoran marka si aad luuqada isugu beddesho luuqada aad ku fiican tahay ee wax ku fahmayso Faransiis Carabi English ay noqoto waxaad ku dhufanaysaa 3 dhibcood u koreeyo hadda waxaa diyaar ah aniga yacni Italian jooga hadda waxaa diyaar ah 3 luuqadood Jarmal oo luuqadooda ah English iyo Turki Englishkan aadana marka Englishka markan aadno waa tan shuruudihii oo bilow ah iyo qaabkii oo dhan waa kuwan marka qaabka loo xareysanayo waddanka hadda adiga aad joogto in laga ogol yahay Schengen Card oo fursadan shaqada iyo shaqaaleysiinta ee waddanka Jarmalka dibadda laga soo qaadayo inay bannaan tahay oo laga ogol yahay iyo in kale halkan aad ka ogaan doontaa haddii aan isku dayo inaan si tartiib idinku sharxo marka ugu horeyso horta waa inaad shahaado jaamacadeed haysato ama shahaado khibradeed oo shaqo tusaale ahaan shahaado khibradeed oo caafimaad haddaad haysato waa okay haddaad shahaado dhismo oo xagga dhismaha ku saabsan aad haysato waa okay waa soo dalban kartaa haddii aad haysato shahaado makaaniko ama ha noqoto diyaaradaha ama ha noqoto baabuurta waa soo dalban kartaa haddii aad haysato shahaado xagga korontada waad soo dalban kartaa waa lagu ogol yahay haddii aad haysato shahaado
xagga networking waad soo dalban kartaa, way bannaan tahay. luuqadda waxaa muhiim ah haddii aad awooddo inaad luuqadda English, luuqadda Jarmalkan ka wadaa, inaad haysato A1, iyaga waxay dhahaan A1 ay dhahaan af Jarmalka. A1 wata haddaad haysato, ama B2 waa levelka yacni luuqadda. haddii aad luuqadda Englishka B2 aad haysato, ama aad luuqadda Jarmalka A1 aad haysato, waa la aqbali karaa. labada luuqadood ayaa muhiim ah, waayo Jarmalka inta ugu badan waxaa laga hadlaa luuqadooda oo Dutch loo yaqaano, Deutschland, iyo luuqadda Jarmalka oo aan aad u badnayn. laakiin marka ay shaqaalaha caalamka ay kasoo qaataan, way ku qasbayiin, way kula hadlaan afkooda, afka English way kula hadlaan. marka hadda shuruudda waxaa ka mid a in uu qofku labadaha luuqadood midna uu ka haysto halkaan calaamadeeyey, midna uu ka haysto A1, midna uu ka haysto B2, yani waa Englishka B2. inta badan Soomaalida wax baratay luuqadda Englishka aad bay ugu fiican yihiin. shuruudaha koowaadi waa intaas. shuruudda ku xigta waa waxay inaad haysato shahaado heer jaamacadeed. haddii aad shahaado heer jaamacadeed aad haysato, waa aqbal. haddii aad shahaado la aqoonsan yahay oo sharciyeysan oo ID-geedii iyo waxeedii wadata aad haysato, oo waddanka aad joogto uu yahay waddan dowlad ah, shahaadadaas ay tahay shahaado khibradeed oo ugu yaraan 5 sano, ugu yaraan 2 sano, ugu badnaan 5 sano oo khibrada ay tahay, waa aqbal. wadamada iyo qaabka loo ogol yahay waxa dhan halkanay ku qoran yihiin. website-kana waa saan kuu sheegay, waxaa dhahaa shansencard.com. marka ugu horeysa google-ka waxaad ku qoraysaa sidii aan horey ku qoray, haddaan kusoo celiyo, sidii aan horey ugu qoray haddaan idinku soo celiyo, wakaas google-ka ayaa waxaad ku qoraysaa Shansencard Deutschland. kadib waxaad tegaysaa meesha ugu horeysa ay ku qorantahay Shansencard info for Frankfurt und Arbeit home, yacni website-kooda waka ugu koreeyo, waka aan farta ku haayo, waa kaas. waad kusoo dhufan doontaa hadduu rabbi xugmayo. kadib hore hoos baad usii gelaysaa. waan ka xumahay akhyaar, dhalinyaro, wadana waxaa jira dhowrahoo laga ogol yahay. wadanada dhowrta laga ogol yahay qaar Soomaali baa ku nool. wadankeena hooye, wadankeena Soomaaliyeed kuma uu jiro. what's your nationality halkii ay ku qoran, tusaale ahaan waxaan iskugu qoraynaa Soomaali isagaa inoogu diyaariyey, way ku jirtaa. okay, shuruudda koowaad si aad u hubsato in Soomaaliya ay ku jirto, waa inaad halkaas Soomaaliya ku qorto, waa inaad fahanto markaa. anuu hadda gudaha uma sii geliya, adaa la rabaa inaad gudaha usii gasho, su-aalahan yes iyo no inaad kasii jawaabtid. is your country in resident different from your nationality, yacni waddanka aad ku nooshahay, hadda aad degan tahay, hadda aad ku nooshahay, ma farqi baa u dhexeeya, yacni muu kala duwan yahay dhalashadaad haysato iyo waddanka aad hadda ku nooshahay. anigu tusaale ahaan yes ayaan dhahayaa. okay, Italian ku nool aniga, Italian jooga, yacni adiga halkaasaad kasii tixraacaysaa. shuruudahan iyo jawaabahan iyo waxaan dhanna halkan kasii buuxin doontaa. no baan dhahayaa, not for all baan dhahay, waayo anu hadda uma baahni, oo maxaa la dhahay waddan aan deganay baan haystaa oo shaqana ku haystaa. da'daada waxaa oo dhan si tartiibaad u buuxsin doontaa hadduu alla idmo. anugu hadda tusaale ma ayan tusaya, masi dhexgelayo. shuruudda oo faahfaahsan iyo website-ka oo faahfaahsan halka laga helayo, iyadana si tartiib ayaan idin tusayaa. aad iman haysaa. website-kan waan sii diyaariyay anugu. website-ka magaciisa waxaa dhahaa makeitingermany.com. waka halkaa ugu hooseeya ku qoran, halkaas ugu hooseysa waxaa ku qoran makeitingermany.com. website-kan ayaad shuruudihii oo buuxa iyo wixii o dhan aad ka helaysaa. website-ka haddaan idinku soo celiyo, shuruudaha af carabi baan ku akhriyey, waa luuqadan ku fiicnay anugu. website-ka magaciisu waa kaas, makeitingermany.com. makeitingermany.com search baan dhahaynaa. okay, waa kan makeit, image ahaan baan u raadiyey, waa kan halkan u koraysa wey, visit baan dhahaynaa.
websitekaas ayay waxaa ku jira dhammaan shuruudihii wadamada la ogol yahay, xataa wadanada East Africa waxaa ku jirta Kenya, meesha la dhaho Ethiopia, iyo meesha la yidhaaho Uganda. saddexdaa wadan ayaa ku jira. macal asaf shadiid Soomaaliya kuma jirto. Soomaali baa tahay, wadanadaa kulley dhalinyaro sharcigooda haysato oo wax bartay way jiraan. fursadahan ha laga faa'iidaysto, hala raadiyo insha allahu tacaala. hana la igu qaato websitekan hadda aan ku jiro oo makeit.com-na xataa luuqadda carabiga ayuu leeyahay. luuqado fara badan buu leeyahay. English buu leeyahay, Dutch buu leeyahay, Talyaani buu leeyahay, iyo luuqado kaloo fara badan oo laga yaabo inay Soomaali taqaana ay jirto. fursadaha jaanisada ha laga faa'iidaysto. waxaan ku laabto hay-addan, haddii aan wax yaroo sharaxoo kale idinka sii siiyo. shankan kaartigu sanadii 6 bilood ka hor bay shaacisay dowladda Jarmalku in ay wixii shaqaale ah ee khibrad ah ee caalamka jooga in kaar, waa sida green kaarka oo kaleeto, in qaab loogu soo qaado oo lagu soo shaqaaleysiiyo. inta ugu badan Jarmalka saan hore u sheegayba waxay shaqaalaha kasoo qaataan Argentine, Brazil iyo Japan. saddexdaa wadan baa ugu badan. laakiin hadda wadana East Africa ayaa ku jira, iyo wadana Africa ah oo fara badan baa ku jira. innaga East Africa ina khusayso, dhulka Soomaalidu joogta ina khusayso. saaha ulala socdo, hana la igu qaato wixii sharaxahee aanan si fiican u sharaxin. YouTube channelkaas aad hadda adiga daawanaysana aan ku cusubahay. haddii aad awoodo subscribe, like iyo comment isu raaca, iyo wixii kale aad adiga awoodo adigoo aad u mahadsan. hadda kadibna inaan dhalinyarta Soomaaliyeed wax baratay aan la shaqeeyo, wixii go'aan iyo wixii khibrad iyo wixii akhbaaraha soo baxda inaan la soo socodsiiyo ayaan hadda kadib ku tala jira. hadduu alla idmo, aad iyo aad baan idiin salaamayaa. YouTube channelkayga waa kan, halkaasuu ku qoran yahay oo aan laga waayi doonin. war xaguu aadaa biligubku waa kan, halkaasuu marahayaa 1900 buu marayaa. hadduu rabbi xog mahayo halayla socdo, halayla socdo, halayla socdo. waan ku cusubahay, haddaan toos isu keenay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل فايديس وعن إسو فايديس وعن